raadiyo muqdisho iyo telefishinka qaranka Soomaaliyeed oo ah laba warbaahin oo ay leeyihiin shacabka Soomaaliyeed ayaa ujeedka asaaskooda waxa lagu saleeyay baahi weyn oo shacabka u qabeen baahinta dawladnimada iyo in lagu muujiyo in shacabka Soomaaliyeed ay dareenkooda dawladnimada la xiriirta iyo waxa ay qabaan ay ku gudbisan karaan raadiyo muqdisho oo hadda jirsaday wax ka badan nus qarni waxa la asaasay sanadka markuu ahaa 1950 oo ahaa xilli dadka Soomaaliyeed ay baahi u qabeen helida hay'ad warbaahineed oo afkooda ku hadasha xilligaas oo dalka marxalad gumaysi uu ku jiray Xaaji Maxamuud Cali Guuleed waxa uu ka shaqo bilaabay isla waqtigaas maantana weli halkii uu ka shaqo bilaabay ayuu joogaa hanooga sheekeeyo sidii uu ku bilaabay 1949 bishii Oktoobar marka 10keedii in ahaday ayaan jecelahay Oktoobar 10keedii Oktoobar ilaa November December saddexdaas bilood anuu shaqeynaya 1950 ay soo gashay markii ay soo gashay markaas lacag la xisaabay shaqadana la tusoo leedahay shaqadan ayaa leedahay raadiyo Montator la yiraahdo waxa raadiyo soo furfuraysa waana xirxiraysa inta si fiican aad uga barato meeshaan markaas shaqadii ka bilaabay lacagna waxa la ii bilaabay 2 shilin maalintii bishii waxaan qaadanayay 6,000 shilin sidaas aan ku joogay ilaa waqti aan ku soo gaaray waxay ahayd qol yar ee ku yaala wadadaas dhinacaas u fureeday mid yar oo qol yar oo laba qol oo yar ay ahaayeen telecommunication telegramada ay ka dirsan jireen gaaladu meeshada marka telegramka markii ay dirsadaan ayaa motorku noo faraaqoobi jiray markaas waxaan ku day jirnay barnaamijkaas oo ugu horeeyay quraankii iyo gabay iyo maaragtay adigu suxuntan oo gaaladu ay leedahay quraanka waxaa noo akhri jiray Xaaji Maxamed Gobdoon raadiyana waxaa joogay Maxamed Sheekh Maxamuud Gabiyo Abukaata Shaabroon loo magaro Maxamed Raajis Maxamed Kiit waxay ahaa qaar Soomaali iyo Talyaani isku dhex jira intaasu waxay furayeen raadiyo ka shaqeynayeen soo hadba uu u kaco marka ilaa 1950 waa la dagaalamay motor bal raadinay wax kasta la raadinay haddaba raadiyo muqdisho xilliga asaaskiisa uu bilaabanayay qaab noocee ayaa lagu shaqeynayay marxalad noocee ayaa xilligaasi lagu sugnaa warar waa la akhri jiray waxa akhri jirtay gabar la yiraahdo Amelia Ali iyo nin la yiraahdo Maxamed Ayis ma aqaan ayaa akhri jireen marka warka idaacada waa marka la sheego saxan mada saar jirsan oo dadka maqashii jirsan markii saxantu ay dhamaato 3 saxan markay dhamaadaana waa iska xil jirsan raadiyaha soo wax kale jirsan markii dambe waxa lagu soo diiray ninka la yiraahdo Faqad Buraali oo noo gabaygiisi ayaa maanta hadda masaal jirsan ayaana ku soo wada gabaygiisi alxamdulillah rabbil caalamiin waana anfay ayuu noo soo baxay markii dambana waxa yimideen niman oo gasacyo iyo tumaayo oo komboodi yeerinayo oo muusikan sameynaynaale oo noo imaanay komboonikaas iyo dubantaas iyo waxyaalo isku dardanay garaacayeen gitaara la soo helay gitaaradii hadda markii dambe garaacay caraba noo timid kuwa carab ahayd ku jireen carabtiina waxay keensadeen ayada violinkan iyo gambuusiga la garaacay sidaas aan marka xoogaa ku roonaanay markaas waxaan ugu soo diiray Dhaashane waxaan ugu soo diiray Maxamed Farax Dhaashane iyo wuxuu ahay kuwa kale dalays ay ugu soo horeysay naagaha gabdhaha dalays ay ugu soo horeysay markii dambe sidaas xoogaa kuwa dad baa Hargeysa dhan nooga yimid oo leeyahay timanka xandho raadiyo muqdisho oo muddo ku dhow 10 sano ku shaqeynayay hal marxaladda ayaa waxaa jiray dawlado ku tartamayay in raadiyo muqdisho ay ka caabiyaan dhinacyo badan oo ay ka mid yihiin dhinaca motorada dabka dhaliya rag Jabuuti ka yimid ee si fiican raadiyaasha u yaqaanay ayaana la joogay markaas waxaa la dhihi jiray Xaamid Axmed Farax technical waa inaad ka malinaya
ninkaas waa la waday waxaa la geeyey ruushka waxaa la transmitter motorkana la siinaya dowladda Soomaaliya iyo motoryaal waaweyn korontada dhaliya wuxuu yiri motorkan haddii dadkayga la siinayo anaa cusubi karo ana aqaano kan idinka qaadan mayno marka wuxuu yiri motoryaalkan 3 motor la keenay oo waaweyn 3 motor ee waaweynay halkii motor haddii la daaro dib badan uu dhalinayo dib badan ayuu dhalinayo halkii motor haddii la daaro wuxuuna cunayay 6 fuusto oo benziin ruushka waxay yiraahdeen nimankan talyaaniga ee korontada idinsiiya laga qaado korontada ayaan idin daaraynaa waa geenina afgooye joogra geenina meel kasta ma geeyna waa badantaa korontada dad beledka dhamay daaraysa jidadkay daaraysa laga qaado waxa la yiri talyaaniga saaxiibkeena waa in laga qaadayo sida doortay yelbaliye motorkii korontadiisii nus wuxuu ka qaadi jiray warshada caanosi nus inta kale toodna dhulka ugu soo jiro dhulka ugu daray cabdi xaaji goobdoon oo qabiir saxaafadeed waxa uu ka mid yahay saxafiyiintii ka soo shaqeeyay raadiyo muqdisho idaacadda raadiyo muqdisho waxay bilaabatay 1951 kolkaasoo talyaaniga waddanku ku soo laabtay oo uu doonayay dadka wuxuu kula xiriiro oo wargelin ku sameeyo si uu maartay canshuurta u urursado si uu maartay xagga dhibaatooyinka uga hortago ilaa dadkii waa gobonimo doon maalin mudaaharaad la sameeyay waa la dagaalamay talyaaniga waa maqasheen dagaaladii hanoolaatada talyaaniga Kismaayo hanoolaatada Axmed talyaaniga meel badan oo dagaal ay ka dhaceen oo gobonimo doonkii ay maartay gobonimada ay ku doonayeen ay ka dhigeen aasaaskii raadiyo muqdisho kadib waxa uu soo maray marxalado kala duwan taasoo ugu dambeyn horumar ballaaran laga gaaray ujeedkii loo aasaasay nasiib darro waa burburay laakiin alxamdulillah hadda marka loo fiiriyo dalkiisu u burburay iyo sida iclaamka Soomaalida u burburay heerka maanta uu marayo waa heer aad iyo aad loogu bogay runtii inta ka shaqeysana aan ugu hambalyeeynaa anoo weliba og dhaqaalihii loo baahnaa ay wax ku wadi lahaayeen ama wax ku iibsan lahaayeen spare parts ama maxaa qalab dayactir ama ay ku heli lahaayeen barnaamijyo ku gadan lahaayeen ama qoraallo ay ku gadan lahaayeen ayagoonan haysanin raadiyo muqdisho oo horseed u ahaa isku xirka qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliya iyo caalamka intiisa kale ayaa soo kordhiyay waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin in dadka Soomaaliyeed ay aaminaan waxay dawladnimadu tahay isagoo sidoo kale meesha ka saaray waxyaabo ay ka mid yihiin wax dadka Soomaaliyeed ay ka aaminsanaayeen qofka heesaaga waxaana jiray saxafiyiin tiro badan oo raadiyo muqdisho waayihiisii hore ka soo horgali jiray waxaana ka bixi jiray barnaamijyo dawladnimada iyo qiimaha ay leedahay ka turjumayay waxaan raggi ka shaqeynayay Xuseen Sheekh Kadare oo xiriiriye iyo Maxamed Ibrahim Mire Fuqburaale oo isaguna maktabada iyo waxa qaabilsanay library-ga jadwalka sida barnaamijka idaacadda ka baxaya loo habeeyo loo dhiso waxa kale oo maamulayay oo ka shaqeynayay Dr. Maxamed Sheekh Gabiyow oo maamulo ka ahaa iyo muxuu ahaay tood Ali Xaarato oday kale la oran jiray Aadan Low Kiti nin la oran jiray lagu neenaasiyay Kiti adoo rag badan bay aayeen hatta aabay Xaaji Maxamed Gobdoon Allah u naxariistay markaas uu wax bilaabay markii ugu horeysay idaacad Soomaali oo lagu furo Qur'aanul Kariim waxa la gaaray in 3 qof oo ugu horeysa oo ku guuleysata la siiyo abaalmarin weyn la sii jiray tiyaatarka lacag weyn soo gali jirtay markii ay gal ay jireen habeenka Jimcaha waxa la arkay suugaantii inay kobocday ay korodhay waxaa jira hawdeeno ka horgali jiray raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya kuwaasoo waqti badan ku soo qaatay raadiyo muqdisho iyagoo ka shaqeynaya danaha shacabka Soomaaliyeed iyo dawladooda waxaana dadkaasi ka mid ah Xaaji Maxamuud Cali Guuleed oo ah farsamayaqaankii ugu horeeyay raadiyo muqdisho sanadkii 1951 oo ah xilligii la aasaasay kaydka raadiyo muqdisho oo ah kaydka qaranka Soomaaliya ayna ku jiraan waxyaabo badan oo taariikhda Soomaaliya ku saabsan qaab noocee ah ayaa markii si hore lagu aasaasay wasiir waxa ka ahay Cali Hagarey ka ahay waxa Cali Hagarey markaas wuxuu yiraahday hees aan maalin gatay mar dambe ma garanayo waayo markii la saaraba lacag way soo doonataa
saakad saaraysaa galabta lacag soo doonaysaa galabtaad saaraysaa berisuun ay soo doonaysaa lacag bahash hees aan mar gatay mar labaad ma gadanayo cali hagarey wuxuu ku dhawaaqay in la dhiso kaydka asagaa dhisay ajalka la keenay ee aan gataa halkaas lagu xareeyay mar kasta sidii aan wili loogu xareeyay heestii la gato halkaas lagu xareeyay intaasi kadib markii uu kacan ka dhashay ayuu xaalka isbedelay waxaan la bilaabay in shaqada raadiyo muqdisho la ballaariyo si dadka dawladnimada loo gaarsiiyo iyo in shaqaalaha aqoon kororsi dalka dibaddiisa loogu diro si ay u soo qaataan tababaro kala duwan oo xirfadooda la xiriira runtii waa jirtay dad seminar loo qaaday scholarship ani waa la siiyey ku elishka yahayna waa la siiyey anaga German aan tagnay waxbaan ku soo baranay waana soo noqonay haddana waxaan helnay mid kale intooda iska hooyar oo lagu tagay Masar oo ka soo xamalay kaasna waa soo dhamaysanay markii kacaankii uu dalka qabsaday raadiyo muqdisho waxa uu bilaabay warar iyo barnaamijyo ka turjumaya qiimaha dawladnimadu ay leedahay sidoo kale waxaa jiray darsiyo diini ah iyo wacyigelin shacabka ay ugu sameynayeen hobolada qaranka ee waaberi waxaana barnaamijyada ka bixi jiray raadiyo muqdisho badankood looga hadlayay horumarinta dawladnimada iyo sidoo kale difaaca sharafka iyo qarannimada jamhuuriyadda sanadka markuu ahaa 1983 waxaa suuragashay in hawada la geliyo telefishinkii ugu horeeyay Soomaaliyeed haddaba sidee ku suuragashay taasi waa kan Cabdi Xaaji Goobdoon oo ahaa agaasimihii guud ee wasaaradda warfaafinta xilligaasi telefishinka waxa weyn ku soo kordhiyay iclaamka ama warfaafinta Soomaaliya sababtu waxa weeyaan waxa arag oo dadkii oo maartay loo bandhigayo xaq siyaasadeed wixii dawladdu ay qabanaysay iyo shirarkeedii iyo howlay qabanayso xaq dhaqaale oo maartay horumarintii beeraha xoolaha badda kalluumaysiga waddanka nicmada uu leeyahay mid walba lagu tusayo maartay sawir ay aragti ku arkayaan iyo xaq bulsho oo xagga maartay caafimaadka wixii horumar laga sameeyay isbitaalaha hadii la dhisay waxbarashada sanadkii 1991 oo ahayd xilliga ay meesha ka baxday dawladda dhexe ee dalka waxaa bilowday burburkii dalka iyadoo sidoo kalena uu burburkii dalka ka dhacay uu meesha ka saaray nidaamkii dawladnimada ee muddada shacabka Soomaaliyeed ay ku naaloonayeen waxa kaliya ee burburkii dalka ka dhacay ka badbaaday oo shacabka Soomaaliyeed u haray waxay ahaayeen hantidooda oo ah kaydka qaranka ee raadiyo muqdisho iyo idaacadda codka shacabka jamhuuriyadda Soomaaliya wixii ka dambeeyay burburkii dalka waxaa soo maray dawlado ku meel gaar ah oo talada dalka waqtiyo kala duwan soo maamulayay mana jirin dawlad isku hawshay in raadiyo muqdisho ay dib u kiciso marka laga reebo dawladdii oo madaxweynaha ka ahaa madaxweynihii xilligaas Shariif Sheekh Axmed 24 bishii Oktoobar sanadkii 2009 waxaa dib loo xoojiyay raadiyo muqdisho oo xilligaas ay ka shaqeynayeen wariyaal ka howlgali jiray idaacadaha madaxa bannaan ee magaalada muqdisho ku yaalay xilligaas kuwaasoo markii maleeshiyaadka al-shabaab cadaadis xooggan ay shaqadooda ku saareen go'aansadayna inay ka shaqeeyaan warbaahinta qaranka waxaana saxafiyiintaasi ka mid ah Cabdiraxmaan Yuusuf Sheekh Al-Cadaala oo hadda ah agaasimaha warbaahinta qaranka raadiyo muqdisho waxaa dib loo xoojiyay 24 bishii Oktoobar 2009 markaasoo magaalada muqdisho ay ka jirtay xiriiri aad u liita oo dhinaca meediyaha ah oo ku beegnayd waqtigii al-shabaab ay baabi'iyeen ama ay dimiyeen warbaahintii gaarka loo lahaa ee magaalada muqdisho isla markaana dagaalkii aadka u xoogganaa ee magaalada caasimadda ka wadeen marxaladaas ayuu ku soo aaday wuxuu runtii iftiin u furay dadkii Soomaaliyeed oo indhaha iyo dhagahaba ay ka xireen al-shabaab waqtigaas haddaba dib u xoojinta raadiyo muqdisho ayaa shacabka Soomaaliyeed u noqday iftiin u soo baxay iyo dawladnimadii oo dib u soo laabatay xilligaas ay dalka ka jirtay marxalad aad u adag oo aan qof kasta ku dhiiran karin inuu dalkiisa iyo dadkiisa u shaqeeyo waxaana sidoo kale raadiyo muqdisho uu ku guuleystay in dadka Soomaaliyeed uu u sheego magaca rasmiga ee kooxda al-shabaab haddaba intaasi kadib maxaa dhacay saaxiibadii afka laga qabtay ayaa ku qanacay ku dhiiridan inta idaacad furtaan ka sheegaan xaqiiqada al-shabaab inay dad dilaan culummo dhahaysa way qaldan yihiin al-shabaab inay soo daayaan magacooda runta inay sheegaan
taasi horta waa wax weyn oo warbaahinta qaranku ay qabatay midda labaad waxay tahay in dawladnimo Soomaaliyeed la aamino oo shaqo loo soo doonto oo la ammaano oo in dawladnimada dhexdeedu ay noqoto meel lagu faano oo lagu tartamo oo la arko haween Soomaaliyeed goorma u horreysay intay biyo qaadaan oo furin tagaan ciidamada biyo siinaya dad intay tagaan ciidamada u gargaaraya oo mataqaanaa caawinaya dad xarumihii dawladda dhisaya dad dawladnimadii dhisaya oo ka qayb qaadanaya goorma u horreysay iyadoo raadiyo muqdisho uu furan yahay muddo 2 sano ah waxaa lagu guulaystay in la furo telefishinka qaranka Soomaaliyeed ee SNTV oo ka hor maleeshiyaadka al-shabaab badan ay isku dayi jireen inay daboolaan muuqaalka waxa runta ee ka jira magaalada Muqdisho gaar ahaan meelaha ay la wareegaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM waxaana sidoo kale telefishinka qaranka uu ku guulaystay in si dhab ah ugu soo bandhigo bulshada Soomaaliyeed iyo caalamka intiisa kaleba oo u tuso waxa runta ee jira wajiga dhabta ee maleeshiyaadka al-shabaab iyo waxa ay yihiin iyadoo kaamirooyinka TV-ga qarankana si toos ay ugu tagayeen furmaha hore ee dagaalka si shacabka ay ugu soo gudbiyaan waxa runta ee ka jira halkaasi waxa ku soo biiray telefishinka 4 Abriil 2011 wuxuu runtii telefishinku gacan weyn ka geystay isna hawshii socotay si gaar ah maadaama waxa ka baxay raadiyo Muqdisho ay ahaayeen maqal marar badan al-shabaab waxay isku dayi jireen in ay ka dhigaan ama ay inkiraan waxyaabaha iyo tusaale ahaan meelaha la qabto oo dawladda ay qabato oo kaleeto markaan isku dayno inaan soo sheegno inay dhahaan waa been inaga joogna laakiin telefishinku wuxuu sahlay in kaamirooyinkeenu ay tagaan furinta hore ee dagaalka kadibna ay soo saaraan wixii meesha ka socday hadafka raadiyo Muqdisho iyo telefishinka qaranka Soomaaliyeed ayaa in dadka Soomaaliyeed ay ugu soo bandhigaan dhibaatada kooxaha nabadda iyo deganaanshaha dalka ka soo horjeeda baahinta dawladnimada iyo in bulshada ay u baahiyaan horumarka dalka ka socda taasoo farxad iyo sumcad u ah dhammaan bahda warbaahinta qaranka iyo shacabka Soomaaliyeed warbaahinta qaranka Soomaaliyeed ayaa kaalin weyn ka qaadatay arrimaha wacyigelinta bulshada agaasimaha warbaahinta qaranka ayaa sharaxaya waxay shacabka Soomaaliyeed ka aaminsanaayeen warbaahin dawladeed iyo kaalinta raadiyo Muqdisho iyo TV-ga qaranku bay ka qaateen in dadka ay tusaan wadada saxda ah ee dawladnimada dadka Soomaaliyeed u sheegno dawladnimada inay sax tahay aysan dambi ahayn in dadka u sheegay dabcan anagu ma ahayn afka hadlayay dadka hadlayay ayaan siinay space ku hadlaan ama meel ay dadka kala hadlaan culimadii iyo waxgaradkii aqoon-yahankii raadiyo Muqdisho markaa wuxuu sahlay in dadka waxgarta ee Soomaaliyeed ay ku dhiiradaan inay dadkooda kaleeto wax u sheegaan falilah alxamdu taasina waxay saasheen dadka kale ay qaataan waxa ay dadkaasi mataqaanaa wanaagsan u sheegayeen taasoo abuurtay jawigii wanaagsanaa ee maanta aan ku sugannahay haddaba raadiyo Muqdisho iyo TV-ga qaranka ayaa horumarka ay gaareen waxa ay ku hogaaminayaan saxaafadda dalka waxaana su'aasha isweydiinta mudan ay tahay warbaahinta qaranka ujeedooyinkii loo aasaasay maxaa ka qabsoomay runtii wax badan baa hirgalay waxaa hirgalay horta mar waxaan hoggaan fiican iyo tusaale fiican u noqonay saxaafadda Soomaaliyeed waxaan ogahay anigu waxaan ka mid ah dadka ka shaqeynaya private media-ha ama saxaafadda gaarka loo leeyahay wixii aan ku shaqeyn jirnay iyo wacyiga aan ku jirnay wacyi adag buu ahaa dhibaato badanna waa kula kalonay saaxiibo badanna waa ku weynay maanta oo aan joogno warbaahinta dawladda Soomaaliyeed aan joognana يعني waxaan dhihi karaa saxaafadda Soomaaliyeed in horumar laga shaqeeyo in dawladnimo laga shaqeeyo in al-shabaab wax laga sheego iyo argagixisada waxay yihiin runtaa la sheego annaga u bilowna waan ku faanaynaa taas waan ku qanacsanahay raadiyo Muqdisho ayaa maalin walba isku celcelis waxa uu shaqeeyaa wax ka badan 18 saacadood waxaana uu hawada soo galaa 6 aroornimo oo xilligaas laga bilaabo ilaa 12 habeenimo ama 6 saac uu shacabku u soo gudbiyo warar barnaamijyo darsiyo diin iyo kaalmo suugaaneed taasoo shacabka Soomaaliyeed ay ku qancaan waxaana ka howlgala dhalinyaro u firfircoon kuna qanacsan hawsha ay qaranka u hayaan agaasimaha raadiyo Muqdisho Cabdiraxiin Ciise Cadow ayaa ka hadlay dib u xoojintii raadiyo Muqdisho iyo marxaladii uu soo maray iyo sidoo kale caqabado dhanka gabirida oo idaacadda ka jirtay xilligaasi xaaladda marka maalintaas lagu sugnaa runtii culayska ay leedahay waxaa ugu weyneed markii la rabay in la furo raadiyaha oo aan madaxda la xiriirno xataa telefoon laga wac lama haynin oo line ah oo furan oo laga wici karo madaxda si ay khudbadii furitaanka u jeediyaan wasiirkii hore ee wasaaradda warfaafinta Daahir Maxamuud Geele oo ahaa wasiirkii dib u xoojiyay raadiyo Muqdisho
ayaa sheegay in markii la furay raadiyo muqdisho iyo TV-ga qaranka fursad ugu horeysa ay ka heleen madaxda dawladda xilligaasi jirtay in ilaahay subxaanahu wa tacaala bulshada Soomaalida warbaahinta qaranka markii uu fududeeyay ama uu sahlay madaxdii markaas mas'uul ka ahayd inay heleen waxa ay isku haleyn karaan oo danta guud ka duusho raadiyo muqdisho hadda marxalada aad uga duwan meeshii markii hore uu ku bilowday jooga ayaa soo jiitay bulshada Soomaaliyeed iyo caalamkaba waxaa laga dhigistaa 8 gobol oo kamid ah oo dalka Soomaaliya oo gobolada ugu muhiimsan ah waxaa laga dhigistaa satellite-ka waxaa laga dhigistaa live streaming waxaa lagu dhigistaa taleefanada Yurub iyo Mareykan dadka jooga waxaan leenahay website runtii aad u xoog badan oo tartan la galay website-yo muddo ka horeeyay oo xilli badan soo shaqeynayay laguna tilmaamay inay dhexdhexaad yihiin oo laga yaabo inay warar badan oo anaga aan noo suuragal ahayn ay sameynayaan tartan xoogan la galnay Facebook waxaan leenahay runtii ama social media isku duub Daahir Maxamuud Geele wasiirkii hore ee warfaafinta ayaa aaminsan in warbaahinta qaranka shacabka Soomaaliyeed ay wax badan ku soo kordhisay waxaan isleeyahay maalinkii la bilaabayay meesha ay bulshada Soomaalida ay joogtay xagga wacyiga iyo maanta farq weyn baa u dhaxeeya farqigaasna ciidan ka shaqeeyay ciidankaasina waa ragga warbaahinta iyo gabdhaha warbaahinta inkastoo raadiyo muqdisho iyo telefishinka qaranka Soomaaliyeed ay la kulmayeen caqabado fara badan ayaa haddana waxa uu dhabar adeegay shaqaale maalin iyo habeen u taagnaa in xaalad adag iyagoo ku jira haddana ay dalkooda iyo dadkooda naftooda u huraan runtii waxaan aad u rabaa inaan u mahad celiyo dhalinyaradii ugu horeysay ee lagu bilaabay inay noqdaan kameramaano oo trainingka loo sameeyay waxaan rabaa inaan si gaar ugu mahad celiyo agaasime Cabdiraxmaan Xasan Jimcaale iyo Qays Hurdaaye oo runtii ka yimideen dhul fog oo Yurub ka yimideen in ay telefishinkaas waqti badan iyo dadaal badan ay geliyaan Qays si gaar waxaan uga mahad celinaa asigoo Yurub ku nool oo shaqo fiican haysta inuu ka yimiday runtii duruuf adag iyo dagaalo oo runtii soo dhex galay dhalinyaradii ugu horeysay tababarka u sameeyay oo tababaray oo kameramaannimada baranay runtii waa dhalinyarada maanta uu ku tiirsan yahay telefishinka Soomaaliyeed caqabadihii raadiyo muqdisho iyo TV-ga qaranka soo maray muddo kadib maanta maxay natiijadu tahay al-akhiir waxaan joognaa maanta in qof kasta oo siyaasi ah iyo qof kasta oo culimo ah iyo qof kasta oo dhaqan ah iyo qof kasta oo haweena haddii maanta warkiisa ama barnaamijkiisa aan SNTV raadiyo muqdisho laga sii deynin inuu aaminsan inay waxba ka jiraan joognaa hadda mas'uuliyiintii hore u soo maray wasaaradda warfaafinta Soomaaliya ayaa ku dhiirigeliyay hawlwadeennada warbaahinta qaranka inay halkooda ka sii wadaan maadaama wacyiga ummaddu ay wax badan ku soo kordhiyeen marka waa idinku hambalyeynaya dhaxdiina tartanka yaanu idin gaarsiinin inaad iscolaadisaan inaad barnaamijyada kala riixataan ogaadana sideedaba warbaahinta waa mawhiba amba u dhalasho amba qofka Ilaahay waxa uu ka abuuray kabacdina waa dadaal raadiyo muqdisho iyo telefishinka qaranka Soomaaliyeed ayaa hadda hiigsanaya ujeedooyin badan oo ugu weyn tahay midnimada ummadda Soomaaliyeed isla markaana kor loo qaado codka ummadda Soomaaliyeed si loo gaaro waxay ummadda Soomaaliyeed doonayso oo ah in dalka Soomaaliyeed uu ku soo laabto kaalintii dalalka caalamka uu kaga jiray maadaama xilligay dib u soo kacday warbaahinta qaranku ay ahayd xilli ay shabaab afka qabatay saxaafadda gaarka waxay gacan weyn ka geysatay si tartiib ay u soo noolaato kuna dhiirato in ay runta sheegto Maxamed Ibrahim Pakistan waa xogayaha guud ee ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed marka waxaan leeyahay hambalyo marka koowaad waxaa lagu xasuustaa run ahaantii barnaamijyadii taariikhiga ahaa maaragtay ay sameeyeen iyo maaragtay sidii ay maaragtay run ahaantii u istaageen in ay maaragtay shacabka Soomaaliyeed gudaha iyo dibaddaba sidii ay ugu wargelin lahaayeen ugana haqabtiri lahaayeen warar iyo akhbaaraad wixii dalka ku saabsan shaqada raadiyo muqdisho iyo telefishinka qaranka Soomaaliyeed ay u hayaan ummadda Soomaaliyeed ayaa waxa huwaala inay tahay mid ay ku wada qanacsan yihiin dhammaan shacabka Soomaaliyeed warbaahinta qaranka ayaa xiliyadii adkaa oo ay soo shaqeynaysay waxay fursado weyn ay siisay warbaahinta madaxa bannaan intii ay socdeen howlgalladii dalka looga xoreynayay kooxda argagixisada Al-Shabaab si warbaahinta gaarka loo leeyahayna ay u ogaato xaqiiqda jirta iyo howlgallada kooxaha nabadiidka dalka looga saarayay runtii waxay TV-ga qaranka raadiyo muqdisho saxaafadda kale madax bannaan ay ku dhiirigeliyeen
inay dadka runta u gudbiyaan oo goobta dagaalka uu ka socdo ay geeyaan iyadoo aan xasuusto in xilligaas aan raaci jirnay ee wasaaradda faafinta nagu qaadi jirtay baabuur hoomey ah oo sameecado ku xirnay oo heese ay ka mid yihiin eryaay laga shidi jiray wuxuu nagu dhiirigeliyey marka goobta inayna geeyaan oo wixii saxda ah dadka annagana aan u gudbinno dib u xoojintii raadiyo muqdisho ayaa iftiin soo baxay u noqday ummadda Soomaaliyeed ee joogta gudaha dalka iyo dibaddiisaba sidaasi waxaa qabaa abwaan Cismaan Cabdulaahi Guure waxaan leeyahay guul ummadda Soomaaliyeed u soo hoyatay oo ilaa maanta taagan waaye kadib markii TV-ga lagu soo biiriyay haddana caalamka laga daawaday Soomaaliya waxa ka jira waxa loo haysay markii hore ma ogtahay meel lagu baaba'ay oo lagu hoogay oo waxba ku noolayn oo guri taagan lahayn oo qof nool oo socda lahayn mar kale ayaa haddana haddii alla ku reeyay adduunyadu dib noo soo fiiriso ayuu sababay TV-ga markii lagu soo biiriyana marka waxaan dhihi karaa warbaahinta qaranka waxay ahayd isha kaliya ee ummaddu ay kala socoto waxa Soomaaliya ka dhacaya iyo waxa ay tahay iyo waxa jira marka guul ayaan u arkaa shaqaalaha warbaahinta qaranka ayaa inta badan shirar iyaga dhexdooda ah ka yeesha hawsha adag oo ay u hayaan bulshada Soomaaliyeed iyadoo shirarkaasina inta badan ay ka qayb galaan madaxda warbaahinta qaranka waxaan la isku dhaafsadaa wixii fikir shaqo wanaajin ah iyadoo mararka qaarna dhaliilo dhexdooda ay jiraan taasoo qayb ka ah in hal meel loo wada socdo oo ah in ummadda wanaagga la faro waxaana madaxda warbaahinta qaranka oo shirka ka hadlana ay shaqaalaha kula dardaarmaan in hawsha la hayo horey loo sii wado dadka barnaamijka soosaarayaasha si maaragtay qaybta ay u qaadato in maaragtay barnaamijkii sidii saxtaa lagu warayso maalinka loo hayo barnaamijka waaweyn maalinka la aadaa dhibaatadooda marka la waa lagu celinaa waxa kaloo ayadana aan ku ficnaan lahayn in dadka barnaamijka soosaarayaasha subaxi oo waxba aan ka bedelin oo sidiisii ah anagana waxaan qaadanay dadka aniga la midka meeshaan waalidka ku waayay ee meesha kusoo biiray in dadkii la shaqaynayana aysan weynin ma aysan kamin dadkii saxaabtooda ahaa ay isbaacsadeen oo diin iyo waalana ay ku midoobeen waxaa dhacday marka in oo tiim wada shaqaysan oo dadkii isku xiran ay qabaan hawshan ay sii socoto dadkii lugooyadaasi iyo halligaas damacsanaan oo qorshahooda ahaa in TV-ga dowladda Soomaaliya u dhimana ay isugu guulaysteen mabdaoodii taasna waa waxaan leeyahay qaanaa waa wax iska cad oo bulshada Soomaaliyeed tahay waxaan aad ugu mahadcelinayaa ninka la dhaho Cabdulaahi Codka runtii ninkaas wuxuu mudan yahay in looga daysado mas'uuliyadda shaqada waxay tahay muddo dheer oo laba barnaamij wada oo toddobaadlayaal ah weligiis maalin kuma baaqan barnaamijkiisu weliba kayda u sii yaala mar kasta kayda u sii yaala labadiisa barnaamij oo toddobaadkoo dhan mashquul ku yahay hadda shiftigaa lagu soo daray was maxaa Cabdulaahi oo galay talaadadii hore inuu bilaabo yimid wuxuu dhahay lama socdo waxaan u baahanahay toddobaad inaan sii ogaado sida loo shaqeeyo Cabdikariin Xasan Jaamac wasiirka hore ee wasaaradda warfaafinta oo hambaliyo ku aadan sanad guurada TV-ga qaranka u diray howlwadeennada warbaahinta qaranka mas'uuliyiinta wasaaradda warfaafinta iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ayaa ku baaqay in la taageero hawsha wasaaradda warfaafinta iyo shaqaalaheedaba ay u hayaan shacabka Soomaaliyeed isagoo dawladda Soomaaliyeed ugu baaqay in wasaaradda warfaafinta la taageero waxaanu ka sheekeeyay marxaladii uu soo maray TV-ga qaranka iyo caqabadihii ay kala kulmeen dib u howlgelintiisa waxaan xusuustaa 2 bilood markaan wasaaradda joognay waxaan tagnay waxaan u tagnay safaaradda dawladda aan saaxiibnahay waaweyn waxaan rabnaa in telefishinka kicino ee kaalmeeya xeelan telefishin lacag badan buu u baahan yahay ka bixi kari maysaan marka hal saac universalka ijaarta oo warka dawladda saasa ku sii deystaan ujeedada dib u howlgelinta raadiyo muqdisho iyo telefishinka qaranka Soomaaliyeed ay ahayd in ummadda Soomaaliyeed laga haqabtiro warbaahinta iyadoo warbaahinta qarankan ay door weyn ka qaadatay halgankii maleeshiyaadka al-shabaab dalka intiisa badan looga saaray taasina waxay sii dhiirigelisay in shacabka Soomaaliyeed ay TV-ga qaranka iyo raadiyo muqdisho ay u arkaan in ay iyagu leeyihiin Soomaalidu waa dad waxa la yiraahdaa oral society oo aad maaragtay inay wax maqlaan dhageystaan marka qofku uu ku salaamo salaamu calaykum markuu biiro waxa ku xigto maxaa la sheegay macnaheedu ay tahay balqabaadka u dambeeyay marka runtii dad noocaas oo kala ah in ay muhiim u ahayd in warbaahin qaran oo TV iyo raadiyo loo sameeyo runtii waxay ahayd arrin oo aad iyo aad muhiim ugu ah bulshadana waxaan aad uga mahadcelinayaa in raadiyo muqdisho iyo TV-ga qarankaba
ayaga waxay leeyihiin waxaa jira guddi magaciisu uu yahay guddiga goob shaqo oo ka kooban qaybaha kala duwan ee wasaaradda warfaafinta kaasoo ka shaqeeya danaha iyo xuquuqda shaqaalaha wasaaradda waxayna yeeshaan kulamo caadi ah oo ay kaga hadlaan waxa guddiga uu qabsoomay iyo haddii ay jiraan kiisas arrimaha shaqaalaha quseeya oo loo soo gudbiyey raadiyo muqdisho iyo telefishinka qaranka Soomaaliyeed muddadii dib u xoojintooda waxaa jiray dhalinyaro gabdho iyo wiilal isugu jira kuwaas oo ku soo tababartay gudaha wasaaradda warfaafinta xirfadoodana ay ku korortay iyo saxafiyiin horey u soo shaqeeyay si dhaba ay uga sheekeeyeen xaaladihii dhabta ah xilligaasi ka jiray raadiyo muqdisho iyo telefishinka qaranka Soomaaliyeed markii ay ku soo biirayeen iyo xaaladda maanta sida ay tahay raadiyo muqdisho markii aan dhageystay kadib runtii waxay ahayd anigu farxad gaar ah ay ahayd sababtoo ah hore uma aanan maqlin raadiyo afka dawladdu ku hadlay inkastoo aan jeclaa markasta in aan noqdo qof saxafi ah oo meel fiican saxafinimada ka gaar dabcan fikir badan kadibna waxaa ii suura gashay in raadiyo muqdisho 23 bishii Agoosto ee sanadkii 2010 in raadiyo muqdisho aan nasiib u yeesho inaan ku soo biiro aniga runtii waxay ahayd nolol cusub oo markaasi ay u furantay nolosheeda hambalyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan shaqaalaha wasaaradda warfaafinta raadiyo muqdisho iyo telefishinka qaranka Soomaaliya runtii anigu aad baan ugu faraxsanahay in sanadkii afraad aan u dabaaldego xuska sanad guurada SNTV marka aan ka hadlo taariikhda iyo halkan aniga doorka aan ku leeyahay 2009 bishii December ayaan ku soo biiray raadiyo muqdisho waana markii ugu horeysay aan mikrafoon ka hadlo waxaan nasiib u yeeshay ama aan ka mid noqday dhalinta Soomaaliyeed ee hamigoodii gaaray ee qalabka ama hantida dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ku wax bartay waxaan noqday qof halkan ku tababartay raadiyo muqdisho alxamdulillah tababarkii raadiyo muqdisho waa ku guuleystay hambalyo sanad guurada telefishinka qaranka Soomaaliyeed aad baan ugu faraxsanahay waa sanadkii waxaan oran karaa afraad aan ka qayb galo 2011 ayaan ku soo biiray bishii 7 baan ku soo biiray markii aan imi runtii waxay ahayd waxaan dib isku dhigayo aan cabsanayo laakiin waxaan gaaray heer aan ku faano waxaan ahay wariye telefishinka qaranka Soomaaliyeed iyo idaacadda codka qaranka ku hadasha ee radio muqdisho wariye ka hadlaanahay runtiina dad badan baa igu dayday oo aan u noqday horsocod u noqday wariyaal badan oo gabdha ah telefishinka qaranka Soomaaliyeed ayaa fursado kala duwan siiyay dadka Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool kuwaas oo TV-ga u sahlay meel walba ee caalamka ka joogaan inuu u gudbiyo waxa dhabta ah ee ka jira dalka taasoo ku dhiirigelisay Soomaalida dalalka kale ee caalamka ku nool in markii ay arkeen horumarka dalkooda ka jira ay dalka dib ugu soo laabtaan ayna ka qayb qaataan dib u dhiskiisa waxaan hambalyo leeyahay TV-ga qaranka oo runtii haddii la fiiriyo qurbi joogta wax kaliya aan daawanaynay sawirka wanaagsan aan aragno TV-ga qaranka aan ka fiirsanaynay maanta dadka dib ugu soo laabta wadanka ay sabab u noqotay dadka fiirsanayo TV-ga qaranka kaas oo rumeynayno wuxuu soo qaatay markii loo fiiriyo dhinacyada kale amba radio ha noqoto amba website-yada ha noqoto oo dhibaato badan la sheegayo balse xaqiiqda markay timaado aan ku jeesanayo TV-ga qaranka anagoo tiigsanayno aan aragna bal qaranka TV-ga muxuu sheegaya oo haddana aan arkaynay sawiro kala duwan oo ah meesha dhibaatada ay ka socoto dhinaceeda ma dhinac kale amba fiirinaynay markii la fiiriyo horumarka fursad weyn ay tahay inaan muxuu ahaa hambalyadan aan idinkala qayb qaato telefishinka waa telefishinka kaliya oo aan wada leenahay telefishinada kale waa private marka maxaa is dhigi karaa TV-ga kaliya oo qof kasta oo Soomaali ah uu iska dhex arki karo inuu yahay iyo barnaamijyo dhexdhexaad ah dhiirigelin ah qurux badan dadkii hamigelinayo dhibaatada ka ilaalinayo wacyigelin samaynayo inuu yahay aad iyo aad ugu faraxsanahay waana u hambalyeynaya sanad guuradan telefishinka qaranka ee raadiyo muqdisho warbaahinta qaranka Soomaaliyeed ayaa u sahashay hay'adaha ka shaqeeya arrimaha wacyigelinta iyo wadahadalada bulshada inay isku keenaan bulsho tiro badan si looga wacyigeliyo dhibaatada kooxaha argagixisada runtii dagaalku aan galnay waxaan yacni kaalinta ugu weyn ee qaadatay waxay ahayd warbaahinta qaranka TV-ga qaranka TV badan waddanka way jireen balse TV-ga qaranka waxaan dhihi karnaa maanta miraha aan hubsanayno iyo
harka aan harsanayno kaalinta ugu weyn ayaga ayaa qaateen. warbaahinta qaranka ayaa wada shaqayn buuxda la leh ururada iyo hay'adaha kala duwan ee dalka ka howlgala kuwaasoo gebi ahaan ka shaqeeya horumarka dalka iyo wacyigelinta waxaana ururadaasi ka mid ah ururka dhalinyarada qaranka. waxaan u hambaleynayaa guud ahaan bahda wasaaradda warfaafinta gaar ahaan bahda warbaahinta radioga iyo tv-ga labadaba waan leeyahay hambalyo munaasabadda 4 Abriil guud ahaan anigu ka hadlaya magaca dhalinyarada Soomaaliyeed xaqiiqdii doorka uu ka qaato arrimaha bulshada tv-ga iyo radioga waa midaan ku qanacsanahay gaar ahaan doorka uu siiyay dhalinyarada Soomaaliyeed. gudoomiye ku-xigeenka ururka haweenka qaranka Canab Xasan Cilmi ayaa sheegtay in tv-ga qaranka Soomaaliyeed uu heel u yahay ummadda Soomaaliyeed. hal sano isagoo jira ayuu qaaradaha adduunka oo dhan ku hawlgalay waayo waxaad moodaa in loo oomanaa bulshada Soomaaliyeed ay u oomanayd meel kasta oo ay joogtayna dal iyo dabadaba inay qof waliba meesha uu joogay uu ka hirgeliyay oo ka sii dhaqaajiyay khaasatan taliyadaha dibadda oo kale inay fursado fiican iyo jaanisyo fiican ay siiyeen oo iyaga laftigooda u noqotay dugsi ay ka dugsadaan dalkoodii iyo dadkoodii mar walba waxa dalkooda ka dhacaya ay si toos ah ugala socdaan marnaba hawada aan ka baxaynin. marka telefishinka qaranka wuxuu noo hayo wax la soo koobi kara maaha waana ka sugaynay waxyaabihii markii uu hawada noo soo galay. marka telefishinka qaranku waa dareenka ummadda Soomaaliyeed waa jirka ummadda Soomaaliyeed waxa weeye maaragtay ummadda Soomaaliyeed wuxuu u yahay heel. warbaahinta qaranka Soomaaliyeed ayaa wada shaqayn buuxda waxay la leedahay bahda caafimaadka waxayna kala shaqaysaa tabinta barnaamijyo bulshada waxtar u leh. deedan bahda warbaahinta ahayn gaar ahaan weli warbaahinta qaranka doorka ay ka soo qaateen muxuu ahayto tabinta wacyigelinta xaaladaha caafimaadka cudurrada caafimaadka iyo barnaamijyada caafimaadka oo yacni warbaahinta qaranka telefishinka iyo idaacaddaba ka baxa yacni hadduusan aan lahayn runtii wax badan ayaa annaga gaasir naga ahan lahaa. sidoo kale xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda kolayga ayaa aaminsan in warbaahinta qaranka Soomaaliyeed ay wax badan kala shaqeeyeen bahda isboortiga dalka gaar ahaan dhinaca kubadda kolayga. sidaas waxa ii sheegay gudoomiyaha xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda kolayga oo aan ku wareystay garoonka kubadda cagta ee Wish Stadium oo xilligaas ay ka socotay ciyaar ka tirsan horyaalka General Daawud. si wanaagsan oo aan la qiyaasi karin oo aan leenahay wax shuruuda ayaan ku xirnayn ayay noola shaqeeyeen waanan uga mahadcelinaynaa. ilaahay ayaa gudi kara abaalkooda waxaan leenahay waad mahadsan tihiin waxqabadkiinana waxaan leenahay halkaa ka sii wada mana ilaawi doono baalkan ay ka qaateen sara u qaadidda kubadda kolayga ee dhulka tiilay kaalinta mugalla ay ka qaateen midaan iloowi karayna maaha. waxaa jira wariyaal muddo kadib ku soo biiray raadiyo Muqdisho iyo telefishinka qaranka kuwaasoo ka hor warbaahinta qaranka ka howlgali jiray warbaahinta madax bannaan. waxaan ku soo biiray sanadkii markuu ahaa 2013 bishii ugu dambeysay ka hor intaan ku soo biirin waxaan ka shaqeey jiray idaacadaha madax bannaan ee ka howlgala magaalada Muqdisho in badan ayaa idaacadaha ka howlgalayay duruufo badan ayaan ku soo shaqeeyay marba waxaan ku tahamayay oo kaliya weligay in aan mar qura aan ka mid noqdo shaqaalaha wasaaradda warfaafinta gaar ahaan waaxda warbaahinta oo hamigii ugu weynaa ahaa in aan ka howlgalo raadiyo Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliyeed iyo telefishinka qaranka Soomaaliyeed. haddaba warbaahinta qaranka Soomaaliyeed ayaa maalin walba waxay ku howlgashaa jadwal ku salaysan baahinta wararka iyo barnaamijyada dadweynaha loo tabinayo. hambalyo ayaan leeyahay dhammaan shaqaalaha wasaaradda warfaafinta gaar ahaan bahda warbaahinta dib u kicinta ama dib u geleelidda idaacadda iyo telefishinka qaranka munaasabadda awgeed. sidoo kale waxaan hambalyadan la wadaagayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan oo aan leeyahay sanadkan sanadkiisa ilaahay nagu gaarsiiyo basbas iyo barwaaqo. intaas kadib haddii aan ka hadlo qayb ka mid ah shaqada aan ka qabanno TV-ga runtii 24 saac ayuu hawada ku jiraa 24 saacna waxaynu sii daynaa barnaamijyo iyo warar iyo weliba suugaan iyo riwaayado intaba waxa ayna ku baxaan barnaamijyadaas ama barnaamijyadaas oo dhan jadwalkaasi oo sanadkan aan wax ka bedelnay maadaama sanad kasta jadwalka aan dib u habeen ku samayno
jadwalka markaa waxaa ku shaqeeya dhalinyaro qaybta beeraleysiga qaabilsan oo runtii tix raaca maalin kasta jadwalkaasi barnaamijyada iyo suugaanta ku qoran iyo weliba waxyaabaha kale ee soo kordha oo aynu ka munaaqashano waxaana jadwalkaas ay yihiin mid ku salaysan sidaan horeba idinkugu sheegay 24 saac ee maalin kasta waxaa sidoo kale jira dhinaca wararka oo aynu qaab tiftiran ku shaqeyno gaar ahaan qayb shifti ah wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya mudane Cabdulqaadir Sheekh Cali Diini oo ugu horeyn hambalyo u diray howlwadeennada warbaahinta qaranka iyo dhammaan madaxda wasaaradda warfaafinta ayaa ku ammaanay doorka ay ka qaateen horumarka iyo dawladnimada Soomaaliya waxaan jeclahay maanta halkan inaan ugu hambaliyeeyo TV-ga qaranka iyo raadiyo Muqdisho labaduba oo runtii aad iyo aad door aan la ilaawi karin ka qaatay hanuuninta iyo wacyigelinta bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan waqtiyadii adkaa oo nin walbaba shaqada qaranka mararka qaarkood uu ka leexleexanayay si bareera oo aan lahayn wadaninimo ah oo qiira ku jirto ayaa shaqaalaha ka shaqeeya TV-ga qaranka iyo raadiyo Muqdisho intaba iyo idaacadaha kale oo Soomaaliyeedba ay uga hawlgaleen caasimadda Soomaaliya ayagoo dadka Soomaaliyeed gaarsiinaya xaaladda ama xag siyaasadeed xag nabadgelyo intaba waxaa jira talooyin loo soo jeediyay warbaahinta qaranka oo ah in TV-ga qaranka iyo raadiyo Muqdisho lagu soo kordhiyo barnaamijyo kala duwan oo gebi ahaanba ka turjumaya dawladnimada qiimaha ay leedahay iyo waxa dadku ay u baahan yihiin halkan waxa uu hambalyeeyaa sanad guurada afraad ee telefishinka qaranka Soomaaliyeed oo aan aaminsanahay inuu dadka iyo dalkaba wax badan uu ka taray inta yartaa uu qadka uu ku jiray waxaana ku faraxsanahay sida ay u wacyigeliyaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo guud ahaan ciidamada qalabka sida wararkooda u baahiyaan sida bulshada ay u fahansiiyaan dawladnimada waxay tahay in loo badiyo xiisaha wadaniga in loo badiyo wacdiga iyo diinta culimada lagala hadlo maadaama carruurta iyo dadkii Soomaaliyeed lagu khaldaayo diintii in culimada diinka la siiyo waqti jaanis fiican waxaan ku tali lahay warbaahinta qaranka in laga bedelo in ay ku hadasho afka dawladdu waxay rabto kaliya inay sheegto in laga bedelo ayaan ku tali lahay oo haddii alla ku ruuyo dareenka shacabkana ay soo gudbido oo dareenka shacabka midka haddii alla ku ruuyo cabasho dhaba iyo eed dhaba oo u soo jeedinayo dawladda soo bandhiga aan codkiisa laga jarin oo aan la dhayn intaan madaxda qaranka ka carooraysa waxyaabaha hadda tala ahaan aan ku soo jeedinayo waxay tahay oo TV-ga qaranku inuu diiradda saaro ay tahay in maaragtay horumarinta nolosha reer miyiga oo maaragtay aad moodid in warbaahinta inta badan ay ka gaabisay suugaanta in la taageero oo doorkooda la siiyo oo ay raadiyaha iyo telefishinka iyo tiyaatarkaba ku bataan iyaga oo ka tarjumaya dhaqanka wanaagsan ee Soomaalidu leedahay ee ka hortagaya wax khaldan ee ka hortagaya dagaalka ee ka hortagaya wax isdaba marinta iyo maxaan ku idhaahdaa xoolaha ummadda sidii loo dayactiri lahaa in bulshada bacdama raadiyihii shacabka u yahay in bulshada laga qaybgeliyo dhammaan barnaamijyada ha noqoto si toos ah oo live ah ayagoo uga qayb qaadanayo iyo ha noqoto dadka masaakiinta ah oo u baahan dhibanayaasha ah in loo hadlo iyadana in aad waqti badan loo geliyo gudoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa hambalyo ku aadan munaasabadda xuska sanad guurada warbaahinta qaranka u diray dhammaan howlwadeennada warbaahinta qaranka iyo madaxda wasaaradda warfaafinta isagoo talooyin laga maarmaan u ah u soo jeediyey bahda warbaahinta qaranka waxaa maanta oo ay bishu abriil tahay bisha abriil afarteed ay tahay waxay ku beegan tahay sanad guuradii afaraad oo ay ka soo wareegtay dib u noolayntii lasoo nooleeyey ama dib u dhiskii loogu sameeyey SNTV ama TV-ga qaranka iyo raadiyo Muqdisho taasoo maanta ay tahay sanad guuradiisii afaraad waxaan hambalyo gaar ah iyo salaan diiran iyo qadarin gaar ah u dirayaa dhammaan dadka ka shaqeeya iyo howlwadeennada ka shaqeeya raadiyo Muqdisho iyo TV-ga qaranka iyo dhammaan kuwa
aan codkoodana la maqlin oo farsamo ahaan suurtageliya in wararka warbaahinta laga sii daayo arrimaha muhiimka oo ah ogaalka muwaadiniinta. hambalyo 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 sanad guura afaraad. waxaan allah subxaanahu watacaala idinka baryaynaa in aad sanad walba sanadaha soo socda midba midka ka dambeeya aad tayadiina iyo hawshaad qaranku u haysaan ay sii tayowdo oo ay heer wanaagsan oo hadda ka wanaagsan oo la mid ah kuwa caalamka iyo kasii badanba aad gaartaan aan allah subxaanahu watacaala idinka baryaynaa. doorka uu leeyahay tv-ga qaranka iyo doorka uu leeyahay raadiyo muqdisho waa ka duwan yahay doorarka kale oo raadiyaasha iyo tv-yaasha gaarka ah loo leeyahay, waayo tv-ga kani waxaa maalgeliya oo uu ku shaqeeyaa in oo xilkiisi tooska uu yahay in muwaadiniinta Soomaaliyeed iyo dhammaan bulshada caalamkaba uu gaarsiiyo waxyaabaha muhiimka u ah oo ay qabsooma iyo meelaha iyo bartilmaameedyada ay xukuumadda ay dawladda guud ahaan iyo shacbiga dalka loo wado in marta ay la socdaan. dastuuriyan waxaa si gaar ah aan mahad ugu celinayaa doorka uu tv-ga iyo raadiyo muqdisho ka qaato tebinta howlaha iyo howlqabadka golaha shacabka. dastuur ahaan fadhiyadeena guud ee golaha iyo fadhiyada gudiyada baarlamaankaba dastuur ahaan waa fadhiyo dadweynaha u furan oo ay ka soo qayb galaan, ay ogaadaan waxa laga hadlayo iyo sida looga hadlayo ayagoo waxba aan ka faqanin. taa maadaama shacbiga meelo badan uu kala joogo waxaa kaalintaasi gacan naga siiya tv-ga qaranka iyo raadiyo muqdisho. waxaa kaloo ku ammaanayaa in tv-ga qaranka iyo raadiyo muqdisho uu noqday hooyadii tv-yaalka iyo raadiyayaasha kale oo u tabiya wax alla wixii war ah soo gaara si ay ayagana usii tabiyaan una sii gaarsiiyaan bulshaweynka Soomaaliyeed. waxaa mudan inaan xuso in sanadkan 2015 howlaha ay dawladda laga rabo guud ahaan iyo baarlamaanka federaalka Soomaaliya laga doonayo ay aad u ballaaran yihiin, kuwaasoo ay ka mid yihiin dib u eegista dastuurka, dib u dhisidda dowladaha goboleed oo xubin ka noqonaya federaalka Soomaaliyeed, dhisidda axsaabta siyaasiga, dhisidda gudiyada madax bannaan doorashooyinka iyo xuduudaha iyo kuwa la mid ah iyo gudiyo madax bannaan badan la dhisi doono. waa labadii sano ugu dambeysay oo la geli doono federaaleynta dalka iyo qaabaynta maamulka iyo maareynta siyaasadda guud ee dalka Soomaaliyeed. saa daraaddeed waa muhiim doorka ay tv-yada iyo raadiyo ay ka qaadanayaan. waxaan ku baraarujinayaa dhammaantooda inay u feejignaadaan howlaha dawladda ay hirgelinayso. dardaar ahaan waxay iga tahay in raadiyo muqdisho iyo tv-ga qarankaba ay aad u tixgeliyaan dhexgalka bulshada Soomaaliyeed, ayna soo tabiyaan aragtidooda iyo fiirooyinkooda iyo fikradaha ay qabaan iyo siyaabaha ay u doonayaan in dalkooda la gaarsiiyo 2016. dhexgalkaasi oo magiciisii waraysigaasi oo ay bulshada toos u waraysanayaan wuxuu kaalin weyn ka ciyaarayaa taakuleen yacni afkaar ahaan uu caawinayaa madaxda dawladda oo go'aamada ka gaarayso arrimaha dawladda. marka arrimaha noocaas oo kale ah dhexgalka bulshada in la badiyo waa tala aan soo jeedinayo. wasaaraddana waxaan ku boorinaynaa in howlwadeennada ku howlan shaqooyinka ha noqdo xagga farsamo, ha noqdo xagga wartabinta iyo warbaahinta, dhammaantoodba in la tayeeyo oo tayadooda kor loo soo qaado, aqoontooda kor loo soo qaado si ay howlaha ay soo saarayaan ay noqoto mid miro dhal ah oo uu shacbigana mahadiyo oo wacyiga muwaadiniintana kor u qaado. aad iyo aad baad mahadsantihiin. magaca golaha shacabka iyo magaca shacbiga Soomaaliyeed guud ahaanba hambalyo iyo mahadsanid baan isu keendaro. aad baad ugu mahadsantihiin hawsha aad wadaan. garabkiina allah raadiyo muqdisho iyo telefishinka qaranka Soomaaliyeed oo hadda isku darkooda dib u xoojintooda ay ka soo wareegatay ku dhawaad 6 sano ayaa waxaa maragma doontaa in wax badan ay ku soo kordhiyeen dadka iyo dalka.